madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maanta kulan soo dhaweyna dhismaha madaxtooyada qaranka Soomaaliya ugu sameeyay guddiga Soomaaliya ee kiiska badda ayaa bogaadiyay doorkii taariikhiga ahaa oo ay ka qaateen qadiyadda qaran iyo sida jiilasha soo socda ay tusaale ugu noqdeen dhanka difaaca qarankeena. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in guusha kiiska badda ay muujisay kobaca dareenka wadaniyadeed iyo midnimo ee shacabka Soomaaliyeed, isagoona guddiga uga warbixiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay u xuseen guusha taariikhiga iyo damaashaadka ay ka dhigeen dal iyo dibadba. Waxa uu ahaa halgan cadaaladeed oo ku aastaysan aragti fog, aqoon durugsan, dhiiranaan, wadaniyad, ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dadka iyo dalka. waxaa guulaystay halgan dheer oo aynu u galnay difaaca ciidanna iyo sareynta calankeena. afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid ayaa ka warbixiyay kulankan madaxweynaha Soomaaliya uu la yeeshay guddiga Soomaaliya ee kiiska badda ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Assalaamu calaykum. maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha tobnaad sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxtooyada qaranka wafdiga difaaca arrimaha badda ee Soomaaliyeed ee inooga qayb galay maxkamadda ICJ. wafdigaas oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed. markii wafdigu uu ka soo degay garoonka Aadan Cabdulla Cismaan maanta waxaa halka si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku-xigeenka golaha shacabka iyo golaha wasiirada xildhibaano iyo bulsho Soomaaliyeed oo halka si diiran ugu soo dhaweysay. kadibna waxaa wafdigu si toos ah ugu yimi madaxweynaha jamhuuriyadda iyaga oo warbixin ka siiyay guulihii ay ka soo hooyeen maxkamadda ICJ. madaxweynaha jamhuuriyaddu markii uu soo dhaweeyay ka bacdi waxa uu wafdiga ku bogaadiyay isla markaana ku ammaanay doorkii halyeynimo ee adkaysiga lahaa ee ay ugu dhabar adeegeen intii ay dacwadani socotay iyagoo oo akhiritaankiina ka lib keenay. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay ka go'an tahay difaacidda seerayaasha badeed iyo kuwa dhuleed ee jamhuuriyaddeena, waana tan ay u dhaarteen madaxda qaranku. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka muuqaal baahiyaha SBTV magaalada caasimadda Muqdisho.